الله عليكم ولا ليال وادين سلامي دمانتين مeel kasto aad igala socotiin maanta waxaan inayaa topic aad u muhiim ah oo in badan su'aalo la iga weydiiyay waxaan rabaa inaan ka jawaabo laba su'aalo muhiim ah oo ku saabsan protein powder su'aasha koobaad oo la weydiiyay waxay tahay maxay tahay ujeedadiisu maxaa loo isticmaalaa ujeedkiisa koobaad waxa weeye proteinku waa midka ugu muhiimsan nafaqooyinka jirka bini'aadamku u baahan yihiin haddii uu jirku helin protein ku baahan protein ku filan macnaheedu waxa weeye cudurro khatar ah ayaa ka dhalan karaan sidoo kale proteinku waa midka loo isticmaalo muruqaha inuu jirka bini'aadamku ku dhiso marka haddii aad rabtid dad jimka aadid oo isku daysid inaad xogaa muruqa dhistid waxa u baahan tahay inaad jirkaaga siisid protein ku filan tan kale waxa weeye jirkaaga haddii uusan caafimaadka taam ahayn oo aad jirro dhaawacyo ku soo gaareen sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad jirkaaga siisid protein ku filan si uu dayactirka u dhameystiro maxaa yeelay proteinka waxa loo isticmaalaa dayactirka meelihii dhaawacmay ee jirka ama cudur u dhaawacay ama dhaawacyo kale ay gaareen sababta loo sameeyana waxa weeye maadaama proteinku muhiim saas u yahay waxa weeye waxa loo sameeyo waxa weeye supplement way macnaheedu waxa weeye cuntada kuma bedeli kartid cuntadii hore oo cuni jirtay adigoo cunaya ayaa ku dul daraysaa marka waxa weeye cuntadaad helaysid aad cuni jirtay kama aad heleen protein ku filan markaas darteed waxaad u baahan tahay protein powder si aad u supplement garaysid ma ku bedelaysid cuntadaana iska dhaafa protein kan qaadana taas khalad ujeedkiisa taas weeye su'aasha labaad waxa weeye nooca ayaan u baahanahay rag badan oo markay gym-ka bilaabeen suuqa aaday waxa rabaan inay protein soo gataan marka maanta waxa rabaan inaan su'aashaas idin fududeeyo markaad suuqa aadiin boqolaal magac waxaad arkaysaan boqolaal nooc oo kala duwan qofka store-ka jooga wuxuu isku dayayaa inuu ka gado midkii markaas faa'iido badan u saaran tahay ama mid aan aad u soconayn ha aaminin homework group soo samayso adigoo yaqaan waxa aad rabtid store-ka tag marka store-ka tagtay waxaad weydiisaa 100% whey protein 100% whey isolate sababta aad whey isolate soo gadanaysid waxa weeye muhiimad midda koowaad waxa mid ugu pure san waa pure protein waa midda ugu nadiifsan way oo xogaa yar way ka qaalisan tahay laakiin anigu mid kale ma idin soo jeedinaa waxaan soo jeedinaa aad gadatiin 100% whey protein kan company-ga sameeya magaciisa way aniga company-gaas gaar u raadin ku dhahay as long as tahay 100% whey isolate waxaad kaloo fiirisaa markaad suuqa tagtid waxaad fiirisaa scoop size-ka tanoo kale waa 42 iyo waxaad isbarbar dhigtaa proteinka haddii numberka proteinka isku dhow yihiin scoop size-ku macnaheedu waxa weeye protein pure whey waxaad kaloo fiirisaa calorieska waxaad gadataa midda calorieskoodu yar yahay maxaa yeelay ma ahan qaab fiican oo calorieskaaga inaad protein powder ka heshid ma ahan haddii kale kuwa oo calorieskoodu badan yahay waxay keenayaan weight gain burnaan iyo caloosha kugu baxday waxaas kugu keenaya marka labada su'aalood ee maanta raba inaan ka jawaabo haddii su'aalo kale aad qabtiin waad soo weydiin kartiin walaalayaal waa mahadsantihiin su'aasha koowaad waxa weeye protein powder waa u baahan tahay special cuntada Soomaaliyeed dadku cunaan waa cunto aan isku dheellistirnayn haddaad Soomaali tahay cuntada aad iyo aad waa u baahan tahay waxaa yeelay waxaan cunaa bariisku carbs waa wax nafaqa protein fiican kuma jiro waad u baahan tahay haddii aad muqadisaysid waa u baahan tahay haddii caafimaadkaaga xun yahay waa u baahan tahay sidoo kale markaad soo gadanaysid waxaad soo gadataa 100% whey isolate waxaad kaloo markaad whey isolate soo gado tan saddexaad waxa weeye substitute ma cuntada ha ku bedeleen cuntadii hore cuni jirtay adoo cunaysid ayaad ku daraysaa waa mahadsantihiin والسلام عليكم